ku soo dhawow qaybta saddexaad waxayna ku bilaabanaysaa kadib dhacdadii shilka ahayd. Darawalkii sababay shilka wuxuu si qarsoodi ah u istaagay dukaanka Jihon isagoo gudaha u fiirinaya. Nasiib darro, Jihon ayaa qabtay isagoo qashin soo daadinaya. Darawalku wuxuu u muuqday qof wax ka baqaya, sidaas darteed Jihon ayaa ku casuumay dukaanka si ay shaah u wada cabaan oo ay u wada hadlaan. Markii Jihon uu su'aalo weydiiyey, darawalkii si lama filaan ah ayuu bannaanka ugu orday oo jilbaha ayuu dhulka dhigtay. Wuu ka baryay Jihon in uu cafiyo, wuxuuna ka codsaday inuusan booliiska weyn. Kadib darawalku wuxuu u sharaxay sababta uu gaariga ugu jiiray Jihon. Waxaa la ogaaday in Namdo uusan dhimanin balse uu ka cararay qaboojiyaha. Markuu waddada ka gudbayay, gaariga darawalka ayaa ku dhacay. Darawalku wuxuu qaaday Namdo isagoo u maleeya inuu dhintay. Markuu damcay inuu soo aaso, Namdo ayaa si lama filaan ah ayuu u soo toosay. Kadib wuxuu ku amray darawalka inuu u aargudo oo uu waxyeeleeyo Jihon. Namdo wuxuu sheegay inuu haysto muuqaalo caddayn ah oo muujinaya darawalka inuu ku dhacay isaga. Laakiin wax kasta Namdo uu samaynayo waxay ahaayeen sababta Jia darteeda, maxaa yeelay habeenkaas Jia ayaa burburisay qorshihiisii oo dhan. Jihon xitaa wuxuu ku dhawaaday inuu ciil dartiisa la qarxo markuu arkay Jia iyo Jihon oo isugu soo dhawaanaya hortiisa. Taas ayaa ka dhigtay in Namdo uu ka calool xumaado waxa uu indhihiisa ku arkay. Fiidkii markii la gaaray, hooyada Jia oo dukaanka nadiifinaysa ayaa nin aysan aqoonin gudaha u soo galay. Wuxuu weydiiyey haddii halkan ay wax ka dhaceen oo haddii qof dhaawacmay ama uu qof ku dhintay halkan. Hooyada Jia way yaabtay. Markaas Namdo ayaa mar kale dukaanka ka soo baxay. Si lama filaan ah, hooyada Jia waxay xasuusatay wixii ay gabdheeda samaysay. Inkasta oo ay hal mar kaliya aragtay Namdo wajihiisa, haddana way garatay inuu yahay ninkii ay meydkiisa duuduubtay. Hooyada Jia waxay ku casuuntay Namdo maqaayad si ay ula hadasho. Waxay weydiisay inuu gabadheeda uu sii daayo, farahana uu ka qaado. Waxay kaloo weydiisay waxa uu maalintii hore ku sameeyey Jihon. Namdo wuxuu u qoslay si cajiib ah oo wuxuu weydiiyey isagoo leh yaa igeliyey qaboojiyaha maalintaas. Hooyada Jia diyaar bay u noqotay inay mas'uuliyadda qaadato. Waxay si aamusan u soo qaadatay buro si ay gabadheeda u difaacdo. Namdo isna waxba ma uusan qarinin. Dhammaantood hal mar bay hubkoodii soo wada qaateen. Markii ay dhammaan isku diyaarinayeen inay istagaalaan, Jihon ayaa wakhtigaas soo galay. Jihon asna waxba ma samayn. Wuxuu si toos ah u weydiiyey Namdo haddii uu darawalka ku amray inuu isaga u weeraro. Laakiin Namdo wax cabsi ah ma uusan muujinin. Hadaldaas kadib, Namdo halkii uu ka cabsan lahaa wuxuu ku faanay waxa uu sameeyey. Wuxuu ku hanjabay in haddii Jia iyo qoyskeeda ay booliiska u sheegaan, qoyska oo dhan la xiri doono isaga dartiisa. Subaxdii xigtay, Jia iyo hooyadeeda waxay arkeen in kamaradii waddada ku taalay la burburiyey. Markaas ayay hooyadu wax fahantay. Jia waxay go'aansatay in ay u tagto saldhigga booliiska si ay u sheegto wixii dhacay. Si lama filaan ah, darawalkii ayaa arkay iyada oo wuxuu u malaynaya in Jia ay isaga soo dacweynayso. Wuu u orday oo gaariga ayuu horteeda dhigay. Darawalku wuxuu ku yidhi, adigu waxaad igu tiri booliiska uma sheegi doono wixii dhacay, maxaad hadda u tegaysaa saldhigga? Laakiin Jia xitaa ma ogeyn arrinta uu ka hadlaayo. Waa darawalkii oo isagoo aan waxba hubsanin hadal khaldan carabkiisa ka soo baxay. Markii dambe, markii Jia ay su'aalo badan weydiisay, darawalkii wuxuu ku qasbanaaday in uu runta ka sheego shilkii hore. Dhanka kale, Jihon wuxuu joogay dukaanka, wuuna dareemay in gabadha ay murugaysan tahay. Markaas ayuu u cararay, laakiin iyadu si qabow ayay u eegaysay. Iyadana way garanaysay in Jihon uu ka walwalsan yahay waxa dhacay. Markuu isagu su'aalo weydiiyey oo uu damqasho u muujiyey, Jia way murugootay. Galabtii dambe, Jihon mar kale ayuu yimid isagoo hubinaya in ay wax dhaceen. Laakiin Jia waxay u sheegtay in xiriirkooda uu halkii ku dhammaaday. Markay hadalkaas tiri, Jihon si caro leh ayuu ugu codsaday sababta ay sidaas u leedahay. Wuxuu isweydiiyey sababta ay si lama filaan ah u jartay xiriirkooda. Kadib markii Jia ay ka maqashay runta darawalka, waxay go'aansatay in ay ka fogaato Jihon si uu ammaan u ahaado. Waxay rabtay inuusan dhibaato dambe u gelin. Jia waxay tagtay shirkaddii ay iyada iyo Namdo hore uga shaqayn jireen. Waxay fiirisay xogtii shaqada ee Namdo, kadibna guriga ayay keligeeda u soo laabatay. Laakiin jidka dhexdiisa Jia taleefan ayaa u soo dhacay. Markaas Namdo wuxuu taagnaa dhanka kale ee jidka oo iyada ayuu eegayay. Jia ma aysan cabsanin sababtoo ah waxay ogaatay in ay tahay wakhtigii ay la kulmi lahayd. Jia waxay u sheegtay Namdo in ay iskeed isu dhiibi doonto oo booliiska u tagi doonto xilligii ay rabto. Jia waxay u sheegtay Namdo inuu soo raaco. Markay Jia gaartay saldhigga booliiska, waxay wicitaan ka heshay Jangi. Ka hor intaas, Jangi waxay iyadana heshay fariin qoraal ah oo uga timid Jihon. Markii Jia dib ugu noqotay dukaanka, Namdo isna wuu yimid. Jangi markay aragtay walaalkeedii yaraa oo ay muddo dheer raadinaysay, ma aysan farxin ama xitaa murugo kama muuqan. Taas beddelkeeda waxay qabsatay mindi oo si toos ah ayay ugu booday walaalkeeda. Waxaa cad in Jangi ay doonaysay inay isla markiiba disho walaalkeeda. Laakiin awoodda badan ee Namdo wuxuu si fudud u tuuray walaashiisa. Namdo wuxuu rabay inuu ku dhufto Jangi si caro leh, laakiin Jihon ayaa celiyey. Dooda iyo qaylada waxay wargelisay dadka ku jira guriga ka soo horjeeda waddadaas. Hooyada Jia iyo ayeeyadeeda waxay qabsadeen ul oo si degdeg ah ay u yimaadeen, maxaa yeelay hooyada waxay rabtay inay u hiiliso gabadheeda. Dukaankii oo dhan buuq iyo jahawareer ayuu noqday. Si lama filaan ah, gaari booliis ayaa marayay waddada misana soo istaagay iyagoon filaynin. Dadkii gudaha joogay markay arkeen booliiska, dagaalkii way joojiyeen. Kadib, Namdo wuxuu booliiska u sheegay in Jangi ay isku dayday inay mindi ku disho isaga. Laakiin qof walba wuu ka diiday arrintaas. Markaas dacwadii halkaas ayay ku dhammaatay. Kadib markii xaaladdu ay degto, Jia waxay si shakisan u weysiiyey Jangi iyadoo leh, haddii Namdo uu yahay walaalkaaga, maxaad u rabtay inaad disho? Jangi waxay u sheegtay in ay mar lahayd gabar iyada ka yar. Wakhti dhowna gabadha asyar waxay xiriir la soo samaysay Namdo, taas oo Jangi aysan marna ku farxin. Wax yar kadib, gabadhu waxay u dirtay fariin ay ku leedahay in ay guriga ka baxayso si ay niyadda u soo degsato. Waxay u sheegtay in aanay ka walwalinin waxba. Laakiin si lama filaan ah, Jangi
waxay tagtay saldhigga booliiska si ay uga waranto walaasheeda ka maqan Namdo oo aad u dhagar badan isla waqtigaas booliiska ayuu u tegay oo wuu ka hormaray sidaas ayuu Namdo u khiyaanay Namdo wuxuu u sheegay Jangi inaysan mar dambe raadinin walaasheeda sababtoo ah marnaba dib uma soo noqon doonto markaas ayuu bas ka fuulay markay Jangi fahantay waxa uu sheegay waqtigii ayaa ka tegay tan iyo maalintaas Jangi mar dambe ma aysan arag Namdo ilaa maalintii telefishinka laga soo sheegay in la helay meyd gabar maqnayd boolisku waxay xaqiijiyeen in qofkii dhintay ay ahayd Jangi walaasheeda Jia banaanka ayay u baxday si ay u soo nadiifiso muraayadii jabanayd ee hooyadeeda ay jebisay markaas ayay la kulantay Jihon mar kale waxayna u sheegtay in xiriirkooda uu dhamaaday waxayna soo xusuusisay inuusan mar dambe faraha la soo gelin arrimaheeda gaarka ah waxay sidoo kale u sheegtay in beri shaqada ay ka tagi doonto wuxuu weliba ku canaantay inay guriga ku soo laabatay goor xilli dambe ah daryeelkiisa badan mar walba wuxuu welwel gelin jiray iyada waxay had iyo jeer dareemi jirtay inay ammaan la'aan tahay markaasay ku tiri aniga guriga goortii aan imaado adiga maxay kaaga dhigan tahay laakiin waxa aysan ogeyn ayaa ahaa in dareenkeeda oo dhan uu isagu si toos ah u dareemayo laakiin maadaama uu yahay qof xishood badan wuxuu kaliya u sheegay inay ceeb ku keento markay goor dambe timaado guriga arrintan Jia waxay ku noqotay mid jahwareer ah markaas Jia si toos ah ayay u weydiisay iyadoo leh ma i jeceshahay wuxuu kaga jawaabay haddii aan ku jeclahay maxaa dhacaya waana jawaab aan caddayn balse waxay mar kale dib u soo celisay xiriirkii hore u dumay sidaas darteed Jia waxay ka ballan qaaday inaysan mar dambe ka fogaan doonin maalintii xigtay Jia waxay rabtay inay baaritaan ku samayso Namdo markaasay u timid Jihon waxaana u muuqday akoonka Namdo saaxiibkiisa Jihon waxay u malaysay in Namdo uu horay u deganaa isla xaafadooda sababtoo ah Namdo hore ayuu ugu sheegay in meeshii ugu horeysay ee uu Jia ku arkay aysan ahayn shirkadda markaas Jihon wuxuu u muuqday inuu garanaqiyo qofka dhabta ah ee Namdo uu yahay Jihon wuxuu Jia geeyay gurigiisa wuxuuna u sheegay inuu u baahan yahay inuu helo wax muhiim ah nasiib wanaag qolka walaashiisa wuu furnaa markaasay Jia gudaha u gashay waxaa yaab ku noqotay marka ay aragtay inay iyadu ku jirto sawirka albumka gabadha sawirka kula joogtana ay ahayd Jihon walaashiisa markaas ayay maskaxdeeda ku soo noqdeen xusuustii hore waqtigaas iyada waxay ahayd qof la ciilay oo la takooray Jihon walaashiisa ayaa u noqotay saaxiibteeda ay isku dhow yihiin laakiin markii ay isku dayday inay soo xusuusato wixii dhacay madax xanuun daran ayaa qabtay mana fahmin sababta markaas Jihon ayaa soo galay isagoo arkay Jia oo eegaysa sawirka wuxuu weydiiyey haddii ay aqoon u lahayd walaashiisa laakiin fariin degdeg ah ayaa jartay fikirka ay ku jirtay kadib Jihon wuxuu Jia geeyey dukaanka oo iyadoo keli ah ayuu ka tegey markaas ayay fikirkeedii dib ugu laabtay sanado hore waxyaabihii hore oo dhan oo mugdi ahaa hadda waxay u soo muuqdeen si cad wiilka dacweeyey aabihiisa markii hore hadda wuxuu noqday sarkaalka booliiska waana Kanhu qofkii dhibi jiray Jia iyo saaxiibteediina waa isla Namdo qofkii iyaga difaaci jirayna waa Jihon markii ay tan ogaatay Jia si degdeg ah ayay ugu naxday Jihon waxay soo xasuusatay wejigiisii iyo sida uu u ekaa markii uu akhriyey fariintii uu helay waxayna qiyaastay waxa uu doonayo inuu sameeyo markaas Jia si degdeg ah ayay dukaanka uga soo oroday dhanka kale Jihon mar kale ayuu la kulmay labadii saaxiib ee hore fariintii Jihon loo soo diray waxaa soo diray Namdo wuxuu u sheegay inuu arkay qofkii walaashiisa ka qaatay sanado ka hor laakiin hadda wax badan oo xumaan ah ayaa isaga iyo Jihon ka dhex dhacay sidaas darteed Namdo si fudud ugama sheegi doono runta waxa ay tahay labada wiil isla markiiba way iska can qaadeen markay muddo dagaalameen saaxiibkooda kale wuu ka niyad jabay waxa ay sameynayaan markaasuu u dhex galay si uu u joojiyo isla xilligaas Jia ayaa timi wax walba oo Namdo uu sheegay way maqashay markaas ayay hore ugu soo dhaqaaqday markii ay istaagtay maskaxdeeda waxaa ku soo booday sawirkii afartoodii markay caruur ahaayeen sababtoo ah Jihon oo ciyaar badnaa wuxuu lumiyey walaashiisa ka yaray ilaa maanta Jia waxay aamintay in haddii qofku uu isku dayo inuu iloobi karo xanuunkiisa laakiin noloshu sidaas ma aha tan iyo markii Jihon walaashiisa la waayay aabaheeda meel walba ayuu u wareegayay isagoo raadinaya gabadhiisa mararka qaar ayuu guriga ku soo laabanayay laakiin mar kale si degdeg ah ayuu u bixi jiray si uu sii raadiyo markaas Jihon ayaa aabihiisa u raacay goobta basaska laga raaco wuxuu rabay inuu celiyo oo ku yiraahdo ha sii bixin mar dambe laakiin aabuhu weli wuu ka quusan waayay gabadhiisa Jihon wuu baryay oo wuxuu ku yiri fadlan guriga ku soo noqo wuxuuna aqbalay in dhammaan qaladka uu isagu lahaa si kastaba oo ay ahaataba aabaha Jihon weli wuxuu go'aansaday inuusan ka harin raadin gabadhiisa inkastoo ay ahayd rajo aan waxba ka jirin laakiin lama filaan ayaa dhacday wax yar kadib Jihon wuxuu u baxay saldhigga booliiska waxay siiyeen boorsadii lacagta ee aabihiisa uu lahaa iyagoo u sheegay in aabihiisa la waayay boolisku ma helin wax raad ah oo muujinaya halka uu ka baxay mana jirin wax xog cusub oo ku saabsan isaga waqti yar gudaheeda hooyadii Jihon sidoo kale xaalad xun ayay gashay sababtii walaashiisa loo waayay darteeda qoys farxad badan ahaa wuxuu noqday qoys burburay maalin maalmaha ka mid ah Jihon wuxuu helay fariin ka hadlaysay walaashiisa Namdo ayaa u sheegay inuu arkay ninkii walaashiisa sii watay maalintaas laakiin maadaama wax badan oo xumaan ah ay isaga iyo Jihon ka dhaxeeyeen Namdo si fudud uma sheegi doono wixii uu arkay maalintaas labadooduba isla markiiba way isdagaaleen kadib Jihon wuxuu u baxay si uu u baaro qofka loogu tuhunsan yahay in uu ku lug lahaa maqnaashaha walaashiisa ninkaas ayaa hore u sheegay inuu maalintaas walaashiisa qaadi lahaa markaas Jihon wuxuu weydiiyey isagoo leh maxaa dhab ahaantii dhacay maalintaas ninkii wuxuu sheegay in maalintaas lugta walaashiisa ay dhaawacantay taas oo sababtay in aysan guriga ku soo laabanin inkastoo uu ahaa macalinkeedii markuu arkay inay u baahan tahay caawimaad haddana wuu iskaga tegey wuxuuna sheegay inuu ilaa maanta ka qoomameeyo wixii uu sameeyey markii uu dib ugu soo noqday guriga Jihon wuxuu wacay Namdo markaas Namdo wuxuu joogay meel uu amar ka qaadanayo nin qarsoodi ah Namdo
moobilkiisa ayuu u dhiibay ninkii qarsoodiga ahaa oo uu ku wargeliyey inuu dhegaysto. Jihoon ayaa Namdo weydiiyey wixii uu u sheegay maalintii uu arkay walaashiisa oo la sii waday, laakiin Namdo wuu diiday mana rabin inuu u sheego runta. Wejigiisa waxaa ka muuqday cabsi aad u weyn, wayna iska cadahay in Namdo uusan doonayn in ninka qarsoodiga ah uu ogaado inuu arkay qofkii gabadhaas qaatay maalintaas. Indhihiisuna waxay soo muujiyeen cabsi aad u daran. Kadib Namdo wuxuu yidhi hadal yaab leh. Wuxuu Jihoon weydiiyey isagoo leh, aabahaaga ma caafimaad qabaa imika? Jihoon intuu maqlay hadalkaas ayuu naxay maxaa yeelay aabihiisa wuu ka maqan yahay, balse Namdo wuxuu u muuqday in uu wax badan og yahay. Markii Jihoon uu mar kale weydiiyey, ninkii qarsoodiga ahaa telefoonka ka qaatay wuxuuna si degdeg ah u damiyey oo u jaray wicitaanka. Jihoon wuxuu gacantiisa ku qayay sawirkii aabihiisa wuuna ooyey. Dhanka kale Jia waxay maraysay waddada waxaana si lama filaan ah u soo gaaray dareenkiisii murugada badnaa. Xitaa wadne xanuun ayay dareentay. Kadibna iyaduna way ooyday iyadoo aan fahmin sababta. Ugu dambayn Jia waxay si murugaysan ugu socotay dukaanka Jihoon. Waxay u sheegtay waxa ay dareentay waana xaalad aad loola yaabo oo ku riixday inay halkaas dhahdo. Ka hor intaan Jia hadalkeeda dhammaynin Jihoon ayuu u soo orday. Labadooduba markiiba laabta ayay iskeliyeen weliba si macaan. Waana waqti aad u qurux badan oo ay labadooduba farxad weyn dareemeen. Laakiin markaas Jihoon si degdeg ah ayuu uga raaligeliyey Jia waxa uu sameeyey. Iyaduna lama yaabin xitaa waxay ku ammaantay sida uu u fiican yahay laabgelinta. Intay labadaas weli xusuusanayeen wixii ka dhex dhacay, Minje ayaa soo galay dukaanka. Labadooduba hal mar bay istaageen iyadoo ay aad ugu xishoodeen xaaladda ay ku jireen. Minje xitaa isagaa doonayay inuu dhuunto si ay ceebta u yaraato. Markay Jia guriga tagtay, maskaxdeeda waxaa ku jiray oo keliya sawirka isku dhawaanshaha ay sameeyeen. Waxayna bilowday inay marar badan ka fikirto oo si aan ku talagal ahayn ay qosol farxad leh u soo baxdo. Subaxdii xigtay, intay cuno la cunaysay hooyadeeda iyo ayeeyadeeda, Jia weli waxay ku qoslaysay sidii qof ku guulaystay lacag aad u fara badan. Hooyadeeda markay aragtay sida ay u faraxsan tahay, waxay markiiba weydiisay waxa dhacay. Laakiin Jia waxa ay afkeeda ka qiratay waxa aysan rabin inay tiraahdo. Markaas ayay ku qasbanaatay inay tiraahdo waxaan ku riyooday riyo qurux badan oo keliya. Si kastaba ha ahaatee hooyadeeda waxay hadalkeeda ku dartay inay si buuxda u diidan tahay haddii qofka ay jeceshahay uu yahay Jihoon. Jia marka ay taas maqashay, shaki ayaa galay. Waxay hooyadeeda weydiisay sababta, laakiin hooyadeeda waxay ku jawaabtay oo keliya in qoyska Jihoon aysan edeb lahayn. Markay Jia kor u kacday, hooyadeeda aad bay u fakaraysay waxay u eg tahay inay wax qarinayso iyaduna. Maadaama ay ballan la lahayd Jihoon, Jia waxay bilowday inay isqurxiso. Dharka badan ayay isku tijaabisay. Waqtigaas Jia waxay istiri dharkaygii hore ma qurux badnaa talow. Kadib Jia iyadoo faraxsan ayay tagtay dukaanka Jihoon. Laakiin markay gaartay halkaas, Jihoon wuxuu u salaamay sidii uu macaamiil kasta uu u salaami lahaa, kadibna shaqadiisii ayuu sii watay. Jihoon markuu arkay inuu ka maqan yahay taleefankiisa, wuxuu ka codsaday inay iyadu soo wacdo si uu u helo. Markaas ayay aragtay magaca uu ku seef garaystay. Waxay ku sigatay inay waalato oo caro badan la buursanto. Markii Jangi iyo Jihoon ay ka wada hadlayeen magaca eyga cusub loo bixin lahaa, Jia oo meel fog joogta ayaa ku tiri in eyga loo bixiyo eygii Jihoon. Jihoon wuu naxay isagoo aan garanayn sababta ay sidaas u tiri. Ugu dambayn markay Jia sheegtay in Jihoon uu diiday maalin hore, ayuu ugu dambayn u sheegay runta. Wuxuu u sheegay tan iyo markii walaashiisa iyo aabihiisa la waayay, uusan marna ku fikirin inuu helo nolol farxad leh. Laakiin markii Jia ay ka soo muuqatay qalbigiisa, noloshiisiina way isbeddeshay. Waxay ahayd iftiinka keliya ee noloshiisa madow ka saari karta. Jihoon wuxuu kaloo sheegay inuu hadda kadib isku dayi doono inuu qariyo dhammaan dareemada xunxun ee uu qabo. Wuxuu isku dayi doonaa inuu farxad uu ku noolaado. Markii Jia ogaatay waxa qalbigiisa ku jira, waxay noqotay mid u farxada sida ilmo yar camal. Subaxdii xigtay, Jihoon wuxuu helay wicitaan ka yimid Namdo. Kadibna wuxuu aaday xafiiska booliska. Waxay noqotay in habeenkaas kadib markii Namdo uu la kulmay ninka qarsoodiga ah, uu si ula kac ah u dhigay taleefankiisa waddada yar. Ujeedadiisu waxay ahayd inuu ka hortago in boolisku uu helo. Sababta waxay ahayd guriga uu Namdo ku noolaa markii hore waxay baarayaasha booliska ka heleen gabar jirkeeda. Jihoon wuxuu booliska u sheegay in Namdo uu sidoo kale ahaa arday ay isku kalaas yihiin. Markaas haddii ay wax dhacaan, boolisku waa inay Jihoon soo wargeliyaan. Si dhaqso askarigii Kanhu iyo Jihoon waxay gaareen maqaayadda. Qof kale ayaa sidoo kale lagu soo qoray ilaalinta xaafadda. Tan iyo markii Jihoon walaashiisa la waayay, wiil yar ee xaafadda ku nool habeen kasta wuxuu la kulmaa riyooyin xunxun. Mararka qaar wuxuu si keli ah ugu lugayn jiray waddo cidla ah. Isagoo raacaya nalalka waddada wuxuu ugu dambayn yimid albaab casaan ah. Habeenkii Jia waxay keligeed gurigeeda ku laabatay iyadoo keligeed ah. Si lama filaan ah, muuqaalka riyada ayaa u muuqday sidii nolosha dhabta ah. Kadib Jia waxay bilowday inay ka fakarto waxa Namdo uu u sheegay. Wuxuu ku yiri markii ugu horeysay ee ay kulmeen waxay ahayd waddadan cidla ah. Markaas sawir 10 sano ka hor ahaa ayaa ka soo muuqday maskaxdeeda. Isla waqtigaas Namdo wuxuu Jia geeyay albaabka gaduudka ahaa ee riyada ay ku aragtay. Jia ma aysan xasuusan waxa kadib dhacay. Si ay albaabkaas u hesho, Jia waxay subax kasta si joogto ah ugu orodaysay waddadii. Waxay u martay gees kasta oo waddada ka mid ah. Mar kasta oo ay orodo, waxay calaamad ka dhigataa qalin casaan ah. Waqtigaas Jihoon wuxuu xaqiijinayay faahfaahinta ku saabsan walaashiisa. Ilaaliyaha xaafadda wuxuu horay u go'aamiyey in ninka walaashiisa lagu tuhmayo uusan ahayn dembiile. Inkastoo sanadkii hore la helay laba caddayn oo muhiim ah. Mida koowaad, wiilkii arkay ninkii lagu tuhmayay inuu ka haystay walaashiisa oo dhiig ka dhaqanaya dharkiisa. Mida labaad, ninkaas wuxuu ahaa qofkii ugu dambeeyay ee walaashiisa arkay. Sidaa darteed, boolisku wuxuu soo xiray ninkii. Sanadkii kadib markii ninkaas la xiray, fasalka biyaayada ee uu maamuli jiray ayaa khasaaro weyn soo gaaray. Kadib dhacdadaas, dambiilahaas badanaa wuxuu tagi jiray baar si uu halkaas ugu soo ciyaaro. Ninkaas wuxuu ahaa macallin, laakiin waa inuu baar aado si uu u soo shaqeeyo.
tani waxay ka dhigtay inuu aad ugu ceeboobo bulshada dhexdeeda. Sida baaritaanka ku xusan dhiigga ku yaalay shaarka ninkaas waxay ka timid dagaal ka dhacay baarka. Jihon wuxuu sheegay in sanadkaas ay jireen caddaymo muujinaya ninkaas inuusan ahayn qof aan dembi lahayn. Laakiin maxaa keenay in qofna uusan soo muujinin wax caddayn ah? Ilaaliyaha xaafaddu wuxuu sii waday inuu sheego runta naxdinta leh oo ah taliyaha ayaa ahaa dilaaga saxda ah. Wuxuu burburiyey caddaynta oo dhan isagoo ku qasbay booliiska inay sii daayaan ninkii la tuhunsanaa. Waxaa muuqata in taliyuhu uu doonayay inuu ninkaas ku eedeeyo dembigaas oo dhan, markaa qofna ma uusan ku dhiiranin inuu caawiyo ninkaas aan waxba galabsanin. Laakiin markii Kanho uu maqlay arrintan, ma uusan sii adkaysan karin. Wuu istaagay oo si degdeg ah ayuu uga baxay makhaayadda. Waxaa soo muuqatay in Kanho uu yahay wiilka ninkii dembiga beenta ahaa dusha laga saaray. Fadlan muuqaalka haddaad ka heshay like saar, haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesha muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.